وحبدن بيرادين سوماليلاند وان قوسانينا وقويغا دانتا لالهاينا يهود ايا لو غويناي ايي اهيد waa soo cadaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale 22 bisha 12aad waa habeenkii jimcada 1991 waxaa laga dhageystay idaacadda yuhuudda oo loo yaqaan BBC waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo Kristaan ah waraysigu wuxuu u dhacay sida soo socota warku waa war aad u xun marka dhageysta ninka xukunkiisa oo mantiin doona hadii Rabbi qadaro subhanahu wa ta'ala wariyaha idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yiri gaalka ka socda aan qolada Kristaanka magacaaga maxaa la yiraahdaa wuxuu sheegtay in bulxan la yiraahdo iyo magac noocaas u eg wariyaha idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yiri xageed ku dhalatay wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed wariyaha idaacadda yuhuuddu wuxuu yiri waqtigee baa tagtay dalka yuhuudda iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid oo ka soo baxday 1987 إلى 1988 sidaas ayuu sheegay waxa sheegay saas ninkii gaalka ahaa wariyaha idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yiri yani markuu sidaa ku yiri hadda ma waxaad haysataa yani diinteed haysataa wuxuu ku yiri gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa wariyaha idaacadda yuhuuddu hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyay wuxuu ku yiri xisbiga aad yani hogaaminayso ujeedadiisu waa maxay xisbigaas oo ah كريستيان وحزب كريستيانا أو يعني كجرا سوماليلاند wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo Soomaaliland inaan ka qayb galno ayaan doonayaa sidaas ayuu yiri ninka ka socda qolada gaalada ah wariyaha idaacadda yuhuudda warka ayuu ku soo celiyay wuxuuna markaa weydiiyay imisa ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad gaalku wuxuu yiri Soomaaliland dadka u dhashay qoyskii 2 nin ayaan ku leenahay markaan ugu liidanana 1 nin ayaanu leenahay sidaas ayuu gaalku ku jawaabay waxaan u fiirsan hadalka oo ninka gaalka oranayo wuxuu ninka asaga ku yiri oo yani ma wax haysataan kalsooni badan haa buu yiri maxaa yeelay markaan ugu yaraan qoyskii waa 1 ama waa 2 qofood sidaas ayuu u sheegay bal waxaa jira 350 caruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka yuhuudda lana baro diinta yuhuudda idaacadda yuhuudda wariyaheedu wuxuu yiri oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta yuhuudda gaalkii wuxuu yiri haa diinta yuhuudda ayay haystaan wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha la soo qaaday 1987 ilaa 1988 oo halkaa la geeyay wadanka yuhuudda gaalku wuxuu yiri carruurta waxa gacanta ku hayda gabar Soomaaliyeed oo loo yaqaan luul ayaa gacanta ku haysta oo maamusha tarbiyadooda iyo waxooda waxaana si dhab loo bari doonaa diinta yuhuudda dibna waa loo celi doonaa Soomaaliland waxay noo diideen buu yiri inay naga qayb galiyaan dawladda gaalka ayaa sidaas sheegay markii hore laakiin hadda waa naloo ogol yahay saasa meesha ka muuqanaysa waa naloo ogol yahay Soomaaliland waxay nagu dhaheen dawlad diin baan ku xukumi doonaa sidaas ayaana halkaa ka soo cadaatay wax badan bay yiraahdeen Soomaaliland waan goosanaynaa waqooyiga danta laalahayna yuhuudda ayaa loo goynay ayay ahayd waa soo cadaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale waxaan halkaa ka soo cadaatay Soomaaliland in arrintaas ku jirto meesha waxa ninka isaga uu sheegay oo yani gaalka ah markuu yani arrinta ka waramayay magacyadiina miyaad bedesheen ayuu yiri wariyihii idaacadda yuhuuddu wuxuu ku yiri haa magacyo xun oo aan sheegi karin magacooda ayuu sheegay ninka asaga ah wuxuu yiri oo wariyaha idaacadda yuhuuddu xibna miyaad ka tihiin dawladda Soomaaliland wax ma ka tihiin wuxuu yiri gaalku haa waliba golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaan dad badan ku leenahay wa ficlan siday u hadlayeen waa uu egyahay warkaas Soomaaliland sidaas ayaa jirta waxaynan doonaynaa inaanu ku yeelano saldhig iyo meel hagaagsan ayay yiraahdeen waqooyiga Hargeysa oo kale sida oo kale waxa la ii sheegay inay jiraan 20 nin oo aad isugu xiran oo ka shaqeynay ayagu inay wax noocaas oo kala sameeyaan dad badan gacanta ku haya oo ku dhashay galgaduud gobolka loo yaqaan say ayaguna sheegteen meesha waxa idin kaga soo baxay waxyaabo badan ama ka hurda ama hurdada ka kaca uu sheegayo oo ka imaanaya yani Australia qayb koox yar oo joogta iyo Mareykanka oo u soo socda Soomaaliya gudaheeda gobolada dhexe iyo Soomaaliland dawladda lagu magacaabo halka laga sheegayo waxa kale oo la sheegay inay jiraan saraakiil badan oo ka soo degi rabta bariga oo loogu talagalay inay dib badan geystaan waxa kale oo la sheegay inay jiraan noocaas oo kala oo imaan raba koonfurta ayagoo ka bilaabi raba meesha imaan rabaan beledka Buuraxaawo meel la yiraahdo beled xaawo agihiisa waxaana lagu tala gashay in la laayo niman badan oo culimo ah
oo halkaa jooga qabiilka halkaa joogana u badan